Bismillahirrahmanirrahiim. Kulanti wanaagsan daawadayaal waa markale barnaamijkeeni faaqidada wararka warbixinada. Daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij aan ku eegi doono xaaladda cakiran ee ka dhaxaysa dowladaha Eritrea iyo Ethiopia. Dowladda Eritrea ayaa si adag uga jawaabtay hadal dhawaan ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. Dowladda Eritrea ayaa wacad ku martay inaysan gorgortan ka geli doonin madax banaanideeda dhuleed iyo badeed. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa marin badda cas in Ethiopia hesho oo ku sifeeyay mid waajib ah. Wasiirka faafinta Eritrea ayaa dhaliil xooggan u jeediyay dowladda Ethiopia oo ku howlan hanjabaad iyo ficilo abuuri kara ayuu yiri xasilooni darro cusub ee gobolka ka dhacda gaar ahaan Ethiopia iyo Eritrea. Wasiirka ayaa baahiyay bartiisa Twitter-ka. X ayaa sheegay inuu xisbiga talada haya Ethiopia uu wado faafin been ah iyo macluumaad aan sax ahayn oo la wadaagayo sida uu sheegay dadka Ethiopiaanka. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa maalmo ka hor ku andacooday in dalkiisu ay khalad galiyay kadib markii uu oggolaaday in dekedda Casab loo daayo Eritrea, taasoo hadda dekedda si buuxda ugu tiirsan yihiin waddanka Eritrea. Wasiirka faafinta Eritrea ayaa arrintan ka jawaabaya ayaa hoosta ka xariiqay in uu dalkiisu uu leeyahay Casab ay tahay dhaxal gaar ahaan Eritrea ay leedahay. Dowladaha Eritrea iyo Ethiopia ayaa sanadihii ugu dambeeyay u muuqday kuwo isku cuna duuban arrimaha badda cas gaar ahaan dekedda Casab ay Ethiopia isha ku hayso. Muddo 30 sano in ka badan markii Eritrea xorriyadeeda ay ka qaadatay Ethiopia waxay noqotay dal aan bad lahayn, halka badda iyo ganacsiga ay Ethiopia ay kala soo degaysay waddankaas Djibouti dekada ku yaala. Maalmo ka hor ayay ahayd markii uu Generaal Sare ka tirsan ciidamada militariga Ethiopia uu sheegay in Ethiopia ay si cad ay Casab u leedahay welina ay ku jirto marinka badda cas ee Ethiopia ay doonayso inay ka soo ceshato waddanka Eritrea. Wuxuu yiri generaalka Ethiopiaanka, dowlad kala guura aan sharciyad haysan ayaa go'aamisay masiir ah in ay iyadu bixisay dekedda Casab. Sargaalkan sare ee Ethiopiaanka ayaa intaas ku daray, dadaal badan ayaan huraynaa si aan u soo ceshino ayuu yiri marinkaas badda cas gaar ahaan magaalada amba dekeddaas Casab. Generaalka ayaa sheegay badda cas inay noqoto qodob dastuuri ah oo u baahan in la soo celiyo isla markaana la buuxiyo qiimo kasta ay ku kacayso in dib loo soo celiyo dekedda Casab. Arrintan ayaa u muuqatay inay cirka isku sii shareerayso xiisadii hore uga dhaxaysay dowladaha Eritrea iyo Ethiopia oo horay isu dilay marya dhiig lana kala furtay. Dowladaha Ethiopia iyo Eritrea ayaa indhaha isku haya kadib hadallada saraakiishan amba madaxdan sare ee Ethiopiaanka doonista badda cas. Dowladda Ethiopia iyo Eritrea ayaa in badan isku eedeeyay in ay taageeraan fallaaga ka soo jeedo waddankaas Ethiopia gaar ahaan qowmiyadda Amharada iyo Tigray-ga. Dowladaha labada waddan ayaa u muuqda horay Ethiopia ugu eedeysay jamhadda Fano inuu taageero jamhadka Geeska Afrika si hadalka u dhigeen madaxweynaha Eritrea Siyaas Afwerki oo heel iyo hooba u siiyay jamhadahaas ka dagaalama gudaha Ethiopia si ay u burburiyaan waddanka Ethiopia. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa wacad ku maray inuu jamhadahaas ka takhalusi doono oo doonaya inay burburiyaan waddanka Ethiopia. Gobolka Tigray-ga ayaa ahayd inay ciidanka Ethiopia iyo ciidanka Eritrea inay weerar saf ballaaran ay ku qaadeen kana saareen halkaas Tigray-gi ay in badan gacanta ku hayay, balse markii dambe ay Tigray-gu dib ugu soo noqdeen. Eritrea ayaa hadda waxaa la sheegaya inay gacan saar fiican ay la leedahay ciidanka qabiilka Tigray-ga. Dowladda Ethiopia ayaa iyadoo cabsi xooggan ka muujisay xiriirka wanaagsan ee hadda ay la yeesheen dhinaca iyo Tigray-ga. Hore waxay ugu eedeynaysay inay taageero ballaaran ay siiso jamhadda Fano
ee ka dagaalanta gobolka Amxaarada. Wasiir u hadlay Itoobiya ayaa in badan ku eedeeyay dowladda Eritrea taageero weyn inay ku bixinayso burburinta wadanka Itoobiya, balse Eritrea ayaa ganafka ku dhifatay arrintaas, sheegtana inaysan wax ka jiraan ay tahay hadalka ka soo yeeraya dowladda dhexe ee Itoobiya. Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa muddo 2 sano ah raadinaya marin badeed oo uu rabo inuu wadankiisu uu helo marin badda cas ah ama badda Indian Ocean. Hore ayay ahayd markii ay Itoobiya sheegtay inay madaxweynihii hore Somaliland uu ku wareejiyay magaalada Saylac, halkaasna ay 20 kiiloomitir ay ka samaysan doonaan deked ay wax kala soo degaan iyo dhinaca ciidanka Itoobiya ee badda Navy-ga, balse arrintaas ayaa u muuqatay inay socoweysay kadib markii dowladda Turkiga ay soo faragelisay arrinta ka dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya. Markii dambe wada hadal dheer kadib, Itoobiya iyo Soomaaliya Turkigu soo dhaweeyay. Daawadayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa warkayni fiidnimo.